Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkaad iga daawanaysaan waa YouTube channelkayga Cabdalla Muxya. Haddii aad ku cusub tahay channelka, nagu soo biiro ka mid noqo asxaabta halkan nagaga xiran. Haddii aad hor u joogi jirtan, waxaan ku leeyahay isku soo noqod wanaagsan. Minkaaga waaye soo dhawaada. Sidaan TikTok aan idinkaga ballan qaaday ama idinkaga sheegay inaan idinla wadaagi doono interview experience-gaygii. Interviewgaas oo ahaa inaan American citizen aan aqanayo ama muwaadin American ah. Interviewga sidiisaba muxuu ahaa wax adag ma ahan. Waxaa lagu weydiinayaa keliya 10 su'aal, 6 su'aal inaad ka saxdid waaye. 100 su'aal oo buuggan uu ku qoran laga rabaa inaad soo xifdisid. kadibna 10 su'aal lagaa weydiinaya. 10kaas su'aal waa inaad 6 su'aal ka saxdid. oo 6 ugu horeysa hadaa saxdid waa baastay. marka maadaama aan idinla wadaagay safarkaygii ama journeygaygii halkan imaanshahaygii inaan lottery ku imaaday, muxuu ahaa processka suu ii ahaa, yani safarkayga adiga lotteryga aan ku imaada halkan. haddii aadan hore usoo fiirsanin, waxaan kaa codsanayaa inaad soo daawatid si videogan aad ula socotid waxa uu ku saabsan yahay iyo waxa aan ka hadlaayo. haddii aadan awoodin inaad soo fiirsatidna iska joog fiirso. insha allah. horta citizen meeshan waxaa lagu noqdaa 5 sano haddii aad lottery ku imaaday. haddii aad dacwo ku imaaday oo aad 18 ka yar tahay, waalidkaaga hore kaaga qaada. waa waalidkaaga citizen uu yahay, horaa ka qaadanaysaa. haddii dacwo aad ku imaatay oo xaaskaaga ay kusoo dacwooto ama xaajigaaga uu kusoo dacwoodana 3 sano waaye. 3 sano kadib aad citizen noqon kartaa. haddii muxuu ahaa aad ku imaad UN uu kusoo qaadan, isagana waa 5 sano sidoo kale. marka aniga qaybta waxaan ku jira lottery. dadka lottery ku imaaday 5 sano ay ku noqdaan muxuu ahaa citizen. marka safarkayga waa kasoo sheekeeyey. maanta waxaa rabaa inaan hadda videogan kaga hadlo sidii aan TikTok idinkaga ballan qaaday. muxuu ahaa interviewgayga siduu ahaa. interviewgayga aad u fududaa. yani wax oo adag lima weydiinin. 6 su'aal oo 6 su'aal ugu horeysa waa ka jawaabay, waa easy ahaayeen. su'aalaha lii weydiiyey waxaa ka mid ahayd caasimadda Mareykanka sheeg. waa Washington DC. adoo Mareykan imaanina sheegi kartaa, taas waa hubaa. sidoo kale waxaa lii weydiiyey muxuu ahaa senatorka iyo matalaan. senatorka yani waa kuwa aqalka sare oo maleynaya. waxay matalaan dadka stateka degan. stateka dadka degan dhan ee matalaan. su-aasha saddexaad oo lii weydiiyey waxay ahayd calanka Mareykanka muxuu 50 xidig u leeyahay. yani sababta 50 xidig u leeyahayna waxaa waaye 50 state jirto. each state hal xidigaa matasho. su-aasha afaraad oo lii weydiiyey waxay ahayd muxuu ahaa stateka aad degan tahay caasimadiisa waa St. Paul. Minnesota deganahay, caasimadeeda waa St. Paul. su-aasha shanaad oo lii weydiiyey waxay ahayd US territory sheeg. Puerto Rico. muxuu ahaa su-aasha lixaad oo lii weydiiyeyna waxay ahayd madaxweynihii ugu horeeyey ee Mareykanka magaciisa George Washington. waa su-aal iska easy ahday. 100 su'aal oo oo buuggan uu ku qoran yahay 10 su'aal lagaa weydiinaa. buuggaas uu ku qoran yahay YouTube-ka waa ka heli kartaa. yani wax iska easy ah oo aanan adkeen. sidoo kale su'aalo kale waxaa lagu weydiinayaa oo foomka markaa buuxinaysid aad yes iyo no ku buuxisay. su'aalahaasaytan waa lagu weydiinayaa. markaas waxay rabaan inay ogaadaan haddii aad run sheegaysid iyo haddii aad aad sheegaysid been. adoo wixii aad buuxisay aadan lagu sii weydiinayaa. marka dad badan ay ku dhacdaa waxaa buuxsanaysaan in aad wax sax ee sheegtaan. meeshaan haddii aad run sheegaysid, muxuu ahaa cidku wax ku qabsanaysa malahan. muhiimadda waa inaad noqotid qof runta sheegaayo. interviewgaygu wuxuu ahaa maanta 3 saac iyo bar ama 9:15 waqtiga maxaa la dhahaa Minnesota. aniga dhanba waxaan ku jira meesha wax ka yar like 10 daqiiqo camal. yani 10 daqiiqo haddii ugu badato 15 daqiiqo camal aan isla hadlaynay. waxaa lagu weydiinayaa adresskaaga iyo waxyaabahaas. wax saas usii badan ma ahan. su-aalaha lagu weydiinaya foomkayga anaa buuxsaday.
soo marka waa ogaa waxaa ku buuxsaday marka wax adag maba ahaanbo yes iyo nooda waxaa qoraya ogaa maaragtay waxaa gelinayana waa ogaa kamaanan been sheegin wax been haddaa sheegaysid ee kugu arkaan waxay ku siinayaan warqad ay ku qoran tahay decision makaa qaadan karna hadda oo yani sida maaragta aniga hadda lii dhahay approved aad tahay oo dadka qaar gabdha Soomaali ah aan arkay oo maaragta muxuu ahaa lasoo siiyey warqad decisionka maaragta anaga ma samayn karno decisionkaasna waxay noqon kartaa qofka adiga interview kaa qaadayo aanan ahayn qof maaragtay waa la kala darajo sareeyaa qof darajadiisa hooseysa hadduu kugu soo aado decisionka hore ma kaaga gaari karo oo kuma dhihi karo you are approved walaakiin aniga qofkii igu soo aado wuxuu ahaa qof maaragtay darajadiisa iska sareeyo applicationkeygana wax ma ka qaldaneen so isla markii ay approved dhaheen insha allah adiga waxay ii soo diri doonaan dhaar oath wax la dhaho dhaar inaan dhaarto aan dhaho waddankaa difaacaya haddii xaalad adag oo galo raali ma ka tahay su-aalahaasi oo raali inaa ka ahay waxaasay ta hadda isoo weydiin hadhow gacanta unbaa taagaysa waxaa leedahay raaligaa ka ahay saan waaye kan waaye dhac and then kadib waxay siinayaan certificate-ka oo dhalashada kadib baasaboorkii aan sii dalba karaa marka yani wax adag ma ahan mostly dadka maaragtay soomaalida ah waxyaabaha oo sidoo kale waxaa idinka ilaaway imtixaan writing ahaa jiro iyo reading ah waxay ku leedahay senteniskaasiyto qor iyadaa ku dhawaaqayso waa qoray writingki waaye sentenikas maaragtay akhri markaa akhrisid ama dii kale waxay ku leedahay muxuu ahaa sentenis ay kuu qoraysaa ay ku leedahay akhri so aniga labada sentenis waxay ahaayeen midii qor liidhaha waxay ahayd midii akhri liidhaha waxay ahayd who can vote yani yaa codan kara senteniska aniga qor liidhahana waxay ahayd citizens can vote yani dadka maaragtay muwaadiniinta ah aa codan karaan labadaas maaragtay sentence ay ahaayeen who can vote waxay igu tiri akhri oo iyada shaashadda iisoo saartay anigana waxaa lii dhahay waxaad qortaa citizens can vote dadka muwaadiniinta ahaa codayn karo waa intaas keliya wax saas usii badan ma ahan dadka marka maaragtay interview laga qaadaa dadka way cabsiyaan oo waxay ku leeyihiin waxaa wax adagaa lagu weydiinayaa wax saanaa lagu weydiinayaa marka wax adag maahan insha allah dadka looteriga xareystay insha allah oo raba inay ku imaadaan hadduu ilaahay saamahooda soo qaado aad imaataan waxaa idin rajeynayaa idinkana maalintiina in maaragtay aad sugi doontaan oo maanta camal ah aad ku baasi doontaan aad nala wadaagi doontaan idinkana experiencegiin hadduu ilaahay yiraahdo marka intaas keliya ahayd iyo yacni muxuu ahaa waxaa lagu weydiinayaa dareeska hadda degan tahay wax saas usii weyn waxaa adi foomka aa ku buubuuxiso waayo foomkaaga hadduu ku saxan yahay oo aad taqaanid waxaa ku buubuuxsatay interview kuguma adkaana iyo sidoo kale in maaragtay aad xabsi gashay iyo inaad tigid qaadatay oo isbiirin iyo waxaaseeto wax walba inaad runta ka sheegtid adoo isbiirin tigid qaatay haddaad dhahdid isbiirin tigid ma qaadanin waa lagugu qabsanaa hadhow waxaa lagu leeyahay beenaa sheegoosaa wixii dhan systemka way haystaan oo maaragtay ma been ma sheegi kartid systemkaaga wax dhan waa diyaarsan yahay waxaa lagu leeyahay saas maxaas tigidkaas ma qaadatay maya haddaa dhahdid oo aad hore u qaadatan waxaa lagu leeyahay waa you lying ama waa qaadatay maxaa maaragtay beenta u sheegay marka wax walba aad sameynaysaan runta ka sheega xataa lottery markaad buuxsanaysaan runta ka sheega oo foomka DS260 markaad guuleysataan wax saxan oo maaragtay oo ilaahay kula ogyahay oo aad haysatid been haddaa sheegtid dadka soomaalida waxay dhahaan way u mahmaahayeen beenta beeni raad ma leh marka experiencegayga intaasuu ahaa wax oo maaragtay adag ma ahayn insha allah maalinka maaragtay dhaarta aan maraayana waa idinla soo wadaagi doonaa maalinkaas video haddii la duubi karo in maaragtay aan soo duuba isku daya aan soo geliya hadduu ilaa yiraahdo 2 isbuuc adi ilaa 4 isbuuc ay qaadataay igu dhahda nagta marka waa sugaynaa insha allah waxa uu maaragtay dheer waqti maaragtay dheer maahan sidoo kale waxaa idinka ilaaway goorta aan maaragtay xareeyey foomka waxaan xareeyey abriil 25-keedii 2022 sanadkan aan ku jirno interviewgan waxaa la ii soo diray October 17 aa la ii soo geliyey maaragtay foomka maxaa lahaa in online-ka ka fiirsanay yacni aniga dhan waxay iga maqneedbo 5 bilood nasiib waaye dadka qaar waxay ka maqnaataa 7 bilood 8 bilood sanad wiilaa saaxiibana aqaana 2 sano aa laga aamusnaa 24 bilood marka wax waa iska nasiib waxay ku xiran tahay adiga iyo nasiibkaaga marka muxuu ahaa markaa buubuuxinaysid foomkaanne oo inaad citizen aa noqotay rabtid
4 sano iyo 9 bilood maalinka kuu buuxsanto aad xareyn kartaa 5 sano dhahaan laakiin maaragta 4 sano iyo 9 bilood maalinka waddanka joogtid waa in maaragta aad buuxsaa waa buuxsan kartaa haddii 5 sano aad dhammaysanaysidna waad leedahay 5 sano aad dhammaysanaya waa gooni iidan waa caadi waaye waa aniga 5 sano 4 sano iyo maaragtay 2 iyo 9 bilood maalinka ii buuxsantaba March ii buuxsantay muxuu ahaa March muxuu ahaa 28 ii buuxsantay waa iska mashquulsanaa adiga hool iyo xasaa ku mashquulsanaa Abriil 25 aan maaragtay buuxiyay adiga 4 sano iyo 10 bilood camal maaragtay aan ku buuxiyay marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad maaragtay wada fahanteen oo aad muxuu ahaa aad ka wada bogateen dhammaan asxaabta TikTok ii soo duceysay markaan soo gelinayay waa idin salaamaya waa mahadsantihiin ducadiin Ilaahay waa ii aqbalay insha Allah asla socono waa walaalkiin Cabdalla Muxyo idin leh aad baa idin salaamaya channelkan insha Allah kusoo biira oo maaragtay ka mid noqda asxaabta ku xiran active aan ka noqon doonaa maalin walba waa dhahaa laakiin insha Allah waa isku dayi doonaa inaan wax ka bedelo saan si maahan inaan wax ka bedelo waay marka aad idin salaamaya maalinka idin wacnaato habeen haddii idin taana sidoo kale habeenka idin wacnaato asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu